gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka hadlay wararka soo baxay ee sheegaya in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya doonayo in magaalada Hargeysa ay wada yimaadaan madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Gudoomiyaha Faysal oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta oo wareysiisay idaacadda VOA waxa uu sheegay inaanu Farmaajo Hargeysa iman karin, isla markaana waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in qorshe noocaas ah markii labaad la yimaado dowladda Soomaaliland. dhinaca kale gudoomiyaha ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in ay arintan madaxweyne Muuse Biixi kula xisaabtami doonaan mar haddii uu Soomaaliland halkaasi u marinayo waa sida uu hadalka u dhigay. waxaana uu gudoomiyuhu ku bilaabay wareysigiisa. arintani waxa weeye mar hore ayay arintaasi ay timi oo maalin madaxweyne noo yeeray subax yiidoon waxay la soo hadlay ra'iisul wasaarihii Itoobiya oo yiri waxaan jecelahay maadaama aniga Farmaajo hortayna waxaa la noola yimaadaaba horta waxa weeye meel meesha ma qabato. Farmaajo wuxuu ka soo doon karaa Soomaaliland ma jirto. madaxweynuhuna inuu noo keena waxa iga inuu isagu markaaba daaficay anaga dhex kala ma ahayn, maantana ay soo noqoto ma ahayn, inuu aad yar inta diyaaradu iska raaco oo la yiraahdo roog casba lagu dhigay Farmaajo afka looga soo geliyo na taasna waxa weeye waxaan u aragnaa inay tahay waxaan shacbiga reer Soomaaliland iyo asxaabta mucaaradka iyo xitaa ka kulmiyana wax la qaban maaha. waa arrin uu keligii goostay deelqaadna way ku tahay dalkiyaga in la yiraahdo Farmaajo imanaya. mudane Faysal maxaa ku jaban in Farmaajo oo maaragtay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya inuu Hargeysa tago, maxay tahay dhibta ay keenayso? adeer waxay keenaysaa anagu heshiis ma nihin dowladda Soomaaliya labo dan oo col ah oo weli heshiinin oo ogtahay iska daa isagoo xildhibaanadiisii wax xil ka haya meeshaas dalkayga ma iman karaan, isagoo cadow ah oo Maxamed Siyaad Barre uu naga aan ka adkaanay xabadda siyaasadda aan oo adkaadana dalkayga iman maayo. arrintana Muuse waxay ku noqonaysaa arrin la xisaabtamo, ku noqonaysaa shacabka reer Soomaaliya la xisaabtamo hadduu dalkii halkaa marinayo oo nahaweysanaya wax imanaya Farmaajo dalka. arrintaas shacbiga Soomaaliya khamiisna ku noqonaya insha Allah taala shir degdeg ah ka gelina oo shir qaran baan ka gelina arrintaas. laakiin mudane Faysal waxaan ognahay in dhawaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Biixi ay ku kulmeen Ethiopia, dabcan sida muuqata hadiiba ay dhacdo in uu Hargeysa tago waxa uu wada hadallo nabadeed hadiiba ay dhacdo, marka maxaa ku jaban arrintaas inay wada hadlaan? anagu waxa ka horeeya horta marka la ku tagiyo waxa ka horeeya wax lagu heshiiyo waxa weeye anagu wada hadallo waxaan u furnay 2012 kala tago oo laba wadamo walaalo aan samaysano oo toodiya imaka aan hagaajinay tooda la hagaajiyo oo laba wadano cilaaqaad leh ka samaysano. laakiin min aan galmudug tagi kareen oo xukuumin magaalada Puntland in la Hargeysa tagiyo nagu kaambeyn gareeyo adeertaa ma ogolaan mayno. ma kala hadashay arrintan madaxweyne Muuse Biixi? waa lagala hadlay oo waan ka maqnaa. waxaa hore waa isagala hadlay wasiiradiisii iyo shirgudoonka waa la hadleen. saleebaan waa biya hadliyo lahaa noo keenin ninka waa lahaa waxaana shacbiga ogolaanayo umada dalkan shacbi baa ku dhintay, shacbi baa u dagaalamay, shacbi baa gacanta ku jirtaan referendum bay qaadeen, cid kalena shacbiga dhaafsan karta ma jirto. no one is above the mataqaanay shacbiga Soomaaliland. adiga iyo xisbigaada ma ogashihiin in wada hadaladii nabadeed ee dowladda federaalka iyo Soomaaliland ay halkoodii kasii socdaan? may dowladda la furimayno. Farmaajo iyo kooxiisa dhalinyarta meesha kusoo ururiyey ku qariibiinta Muqdisho magaalada la furimayno. doorashada baan suginaa in dad wanaagsan oo caqli leh oo garanaya wixii waajibkooda garanaya oo nabadgelyadooda ka shaqeynaya oo Soomaaliya taay hagaajinaya oo gacan ka siina markay yimaadaan la hadlina.